السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dagaalkii koowaad ee dunida ma waxay ugu yeedhaan dagaalka weynaa waxa uu markii ugu horeysay ka bilaabay qaaradda duqda Yurub inta kadibna waxa uu gaaray caalamka oo idil waxa uu socday dagaalkan intuu dhaxay 1914 ilaa 1918 waxaanu bilaabay kadib markii Imbaradoriyadda Austria dagaal ku qaaday Serbia kadib dhacdadii ka dhacday Sarajevo inta kadibna Ruushka ayaa dagaal ku cilaamay Austria dhinaca kalena Jarmalka ayaa garabka u saaray Austria waxay ka dambeeyeen Faransiiska iyo Britain ay dhanka Serbia ka soo galay dagaalka waxa uu dagaalkani ku dhamaaday in labintu raacdo Ruushka iyo Yurubta kala socotay sanadku markuu ahaa 1918 inta kadibna waxa kulan iyo fadhi nabadgelyo la isugu yimi dalka Faransiiska gaar ahaan caasimadda Paris sanadii 1919 6 bilood oo dood iyo muran ahna waxa qalinka lagu duugay heshiiska caanka ah Versailles heshiiskaas oo soo gabagabay dagaalkii koowaad ee dunida. intaynaan guda galin waxa heshiiskaasi waxa baan ama muhiim ah inuu ka warano dhamaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. heshiiska Versailles waxa uu natiijo ka dhalatay dagaalkii xumaa galaaftay malaayiin noole ah oo badankoodu ayna waxba galabsan. haddaba intii lagu gujiray sanadii 1917 waxa uu Ruushku ka baxay dagaalkii waxaana ka bixitaankiisa sabab u ahaa mushkilada ka jira wadanka Ruushka gudihiisa sida kacdoonadii lagaga soo horjeeday xukunka abadiga ah ee Qaysarada. haddaba ka bixitaanka Ruushku ka baxay dagaalka waxa uu ficilkaasi ku dhiirigeliyay Imbaradoriyadda Jarmalka inay sii wada weerarada maadaama ay heshay 400,000 oo askari oo ka dagaalamaya jihada Ruushka. intii lagu gujiray sanadii 1918 waxa uu Jarmalku weeraray qaybta shanaad ee ciidanka Britain waxayna u geysteen burbur ballaaran inta kadibna dagaalada ay isdaba socday dagaaladaas oo laba dhinacba ay ku leedeen. kadib markii la jabiyay qaybta shanaad ee ciidanka Britain waxay xulafadu sameeyeen diyaar garow aad u ballaaran waxayna weerar culus ku qaadeen Jarmalka waliba iyagoo si bahaliba u galay dagaalka. haddaba dagaalkii loo yaqaanay Marne II waxa uu Jarmalku la kulmay dharbaaxa aad u culus oo wiiqday 4 meelood 3 meelood awoodiisa ah wixii inta ka dambeeyay waxa iska soo daba dhacay warka ay dhibsadaan dhagaha cid walba tartan ku jirta oo ah waalidin jabiyay iyo waalidin ka adkaaday iyo waraha la midka ay tilmaamaya guuldarrada waxayna geysay Jarmalka guuldarooyinkaasi in 200,000 oo ciidankiisa kamid ah ay ku dhacaan gacanta cadawga oo la qafaasho. wixii waxa intaaba ka sii darnaa in Jarmalku 3 bilood oo kaliya uu la kulmay waxa soo khasaara inta kadibna waxay dalbatay xukuumaddii markaa ka talinaysa Jarmalka wax loo yaqaan gorgortanka bilaa shuruuda waayo nin jabay oo guuldareystay shuruudo ma keensado balse dalabka waxa ku gacan saaray xulafadii iyagoo sheegay in dawladda iminka ka talinaysa Jarmalka ayna wax wada hadal la furi doonin. taasna waa tii horseeday in Imbaradorka Jarmalku gudbiyay istiqaaladiisa kuna dhawaaqo waxa loogu yeero Jamhuuriyadda Jarmalka inta kadibna way waafaqeen gorgortankii kaasoo ugu dambeyntii qalinka lagu duugay 20 bishii June 1919. waxaa sidoo kale muhiim ah inaynu farta ku fiirino shirkii nabadda salka lagu dhigay ka socday Faransiiska shirka lagu qabtay Paris 1919 kadib dhamaadkii dagaalkii koowaad ee dunida waxaana kala fadhiyay gudihiisa la sawiro xuduudaha wadamada caalamka gaar ahaan Yurub. waxaa shirkan ka soo qayb galay madax badan ku kala 27 dawlad oo caalamka waxaana badnaayeen kuwii taageersanaa xulafada meesha waxay u yimaadeen in qaniimada qaybsadaan in nabadii may jirin. waxaa soo kale shirkan joogay dawladihii laga adkaaday iyagoo kaliya meesha u joogay inay qalinka ku duugaan waraaqaha hor yaalla. waxaa shirkan si rasmi ah u furmay 18 January 1919 waxaa lagu qabtay qasriga caanka ee Versailles ee Paris ku yaalla waana halka uu heshiiska magaca ka qaatay. waxaana shirka joogay madaxweynaha Mareykanka Woodrow Wilson iyo ra'iisul wasaaraha Britain Lord George iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Vittorio Orlando. waxaana meesha ka maqnayn ra'iisul wasaaraha dalka Faransiiska George Clemenceau iyo la taliyihii Imbaradorka Japan ee Kimoji Naji. haddaba intii shirkan lagu galay waxa dheeraaday murankii u dhaxeeyay dawladihii guuleystay sababta muranka dhalaysana waxay ahayd inay dawlad waliba rabtay in heshiiska lagu saleeyo waxyada u dana taasina ayna suurtagal ahayn. waxaana murankan waqtigan dhaliyay ama keenay waxay ahayd inay dawladahani wax ujeedada ama hadaf ayna u gelin dagaalka waayo dad meel hadaf iyo shuruud sii dhigtay ama sii qortay isma qabsadaan. haddaba haddaan tusaale ku siiyo waxa dawladihii guuleystay kamid ahaa Mareykanka waxa uu dalka ka baxay isagoo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba dhisan oo aan Yurubta kala khasaar ahaan u dhigmin. waxa uu rabay inuu China-ka wacan ka faa'iideysto oo inta yar dib isu soo dhisay ama dib isu kaab ku jirto uu isagu boodo dheer boodo
haddaba madaxweynihii Mareykanka ee waqtiga ee Wilson ayaa miiska soo saaray 14 qodob ee caanka ah ee loo yaqaanay qodobada 14 ee madaxweyne Woodrow Wilson waxaana ay u dhignaayeen sida tan kow in xal loo yeelo xiriirada diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka ka dhexeeya labo in xor laga dhigo socdaalka dhanka badda xaalad kasta ha ahaatee mid dagaal mid nabadgeliyo sababtan waxay tahay in baayac mushtarka caalamka mara badda saddex in meesha laga saaro caqabadaha iyo cunaqabataynta ganacsiyeed si loo gaaro sinaan ganacsi oo dhex marta dalalka caalamka afar in hoos loo dhigo soo saarista hubka iyo sidoo kale isku gooshintiisa maadaama hubku yahay shidaalka ama walaxda u sababta burburka shan in sidoo kale dib u eegis lagu sameeyo dhulalkii gumaysteen dalalka waaweyni gaar ahaan kuwii gumaysteen dowladaha la jabiyey lix in sidoo kale dib u eegis lagu sameeyo xaaladda ruushka kadib kacdoonadii toddoba in Belgiumka laga saaro dhammaan ciidamada ajaanibka ka sugan sideed in Jarmalka laga soo celiyo labadii gobol ee Lorraine iyo Alsace sagaal in shacabku si sariix xaqooda la siiyo toban in dib u eegis lagu sameeyo xuduudaha Talyaaniga si waafaqsan shuruudahooda 11 in sidoo kale la sameeyo dowlad madax bannaan oo Boolish ah taasoo leh marinbadeed u gaar ah 12 in Serbia loo sameeyo marinbadeed u gaar ah 13 in sidoo kale xorriyad la siiyo dowladihii raacsanaa xukunka dowladda Islaamiga ee Cusmaaniyiinta iyo toban ugu dambaysa ah in la aasaso gole dawli ah kaasoo ka shaqeeya amniga caalamka kana hortaga isku dhaca dowladaha si aan dagaalka mid la mid ah u soo laaban waxaan oran karnaa waxa uu heshiis lala saxeexay Jarmalka 28 bishii June 1919 heshiiskaas oo ka koobnaa 200 oo bog 15 qaybood 44 qodob iyo waliba 20 lifaaq waxaan oran karnaa wuxuu heshiis aan cadaalad ahayn oo lagu karbaashay Jarmalka maadaama dagaalkii lagu jabiyay qodobada soo socdana waa qodobada heshiiska Versailles oo jawaab noqon doona su'aasha ah waa maxay heshiiska Versailles heshiiskan gudihiisa waxaa Jarmalka dhabarka loogu tuuray mas'uuliyadda dagaalkii koowaad ee dunida waxaa looga fadhiyay Jarmalka inuu bixiyo magdhow maaliyadeed oo siinayo ama ku abaalmarinayo dalkii guuleystay waxaa labadaba musaaractamayo oo sharad dhigtay kadib kii badiyay uu qaatay lacagtii sidoo kale waxaa Jarmalka laga hor istaagay in wax qalcad militariga ka dhiso agagaarka webiga Rhine iyo sidoo kale gobolkaas oo laga dhigay aag ka caga militariga sida ku xusan heshiiska Versailles waxaa Jarmalka lagu qasbay inuu dib u nidaamiyo ciidanka Jarmalka iyadoo loo ogol yahay ciidanka Jarmalka inay ka badnaan 10 guuto oo kaliya taa waliba sugan 10 guuto aynay ka badnaan karin 100,000 oo askari sidoo kale Jarmalka waxaa laga mamnuucay soo dejinta dhoofinta iyo loo soo saarista hubka iyo waliba adeegsiga hubka culus sidoo kale waxaa meesha laga saaray sharciga Jarmalka ahaa ee qorista askarta ee lagu soo rogay shacabka Jarmalka intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee dunida waxaan shuruudahaas ka maqnayn in Jarmalku celiyo labadii gobol aynu soo sheegnay iyo waliba in Jarmalku aqoonsado madax bannaanida Austria walibana aanu midow dambe la sameyn waxaan ku soo gabagabanayaa qodobkii ugu xumaa ama ugu xanuunka badnaa kaasoo ahaa dhulalkii ay gumaysan jirtay Jarmalku loo kala qaybiyo dalal kale ah Faransiiska Belgiumka iyo waliba Portugal su'aasha ugu dambaysan kaga jawaab muuqaalkan waxay tahay heshiiskan saameyn ku yeeshay bilaawida ama qarxitaanka dagaalka labaad ee dunida adoo qiimeyn kartaa in aduleysatay oo dhulkiisa xoog ka qaaday inuu ku kici doono ficlaan la mahadin maalinku fursad helo waxa lagu qiyaasaa 13 dhulka uu Jarmalku ku waayay heshiiska Versailles dhan kale waxay aaminsan xukuumayaasha naasiyiintu ama naasiyiintu inay haybadooda dhulka ku dhacday waxayna niyadda ku hayeen inay dib soo celiyaan sharafta ay lumiyeen aabiyaashood waxaan oran karnaa heshiiskan wuxuu ahaa sababta ugu weyn ee qarxisay dagaalka labaad ee dunida intaas ayaan ku soo qoyay muuqaalka kaga hadlayay heshiiska Versailles waanigu Cabdullah Firsi wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh